السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري وهذا دمان خيارتك وحنا channelka Explore Option Somali. إن شاء الله أو حلقة محن كقال دونا برنامج ay dhalinyaradu inta badan inaga soo codsatay laakiin waqti la waayay. Barnaamijkaasi waa barnaamijka investmentiga. Hadda ka hor barnaamijkaas waxaa la hakiyay 2021 bishii September. Waxaana la hakiyay bishaas ayaa biloomiyay course-kaas oo ka ekaa January 2022. January 2022 markuu course-ka dhamaaday waxaa jirtay inaan dib dambe loo bilaabin investmentiga. Waxaa jiray dad badan oo hore oo investment loo qabtay investmentigooda helay. dadyo waxaa jira investment markaa u baahnaa in loo sameeyo laakiin waqti loo waayay oo uu ku xidhmay date-ka investmentiga la qaban lahaa ama September ba la xiray si loo bilaabo course-ka. Marka waxaa jirtay codsiyo maalmahan isa soo daba tiriyay. Waxaa jirtay maalmahan inaan ka hadlayay web investment iyo Explore Option update iyo inaan maartay imikada haddaad YouTube-ka gashid waxaad arkaysaa inaan muddo aan waxba YouTube ka soo gelin. sidaa darteed dadku waxay moodeen inaan waxyaalo ku mashquulay. sidaa darteed dadkii investmentiga waxaad u malaynaysaa in intii Instagram-ka iyo Telegram-ka igala soo hadlaysay mooyaane intii kale inay sugayeen in bal YouTube waxa la soo dhigo. sidaa darteed waxaa jira iminka maalmahan dambe dad soo badanayay su'aalo caynkaas i weydiinayay ustad investment maxaa ka leedahay, ustad investmentiga xilli ma la furayaa, xilli ma la bilaabayaa. su'aalo badan baa jiray oo Instagram-ka iyo Telegram-ka laga soo weydiinayay. laakiin su'aalihii insha Allah caawa rajaynaya inaan video kooban aan kaga jawaabo su'aalo ku saabsan investmentiga iyo xilliga la furayo iyo xilliga la bilaabayo. Horta already investmentiga ugu socdaa oo hadda diiwaangelintiisa waa la bilaabay, registrationka ugu socdaa wuxuuna ku eegayaa 15 bisha July si loo dhammaystiro 1 month oo ku beegan 15 bisha August. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa midda ayna fahanteen oo 15 bisha August inuu dhammaan doono ama uu xirmi doono waxa loo yaqaan investmentiga oo dadkii ay qaadanayaan profit-koodii qof kastaaba intii lagu leeshiyay uu qaadanayo. marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan maartay ka hor dhicin wax kastaaba xogta iyo xiriirka iyo wax kastaaba lambarkan soo dhigi doono description-ka oo WhatsApp-ka baad kala hadli doontaan teamka support-ka oo maartay xog dheeraad ah ka siin doona investmentiga iyo qaabka u dhacayo. investmentigana sidii standardka ahayd ee hore aan u dhaqmi jirnay oo baan u dhaqmaynaa oo ahaa inuu dadka qaarna 15 bisha ku xisaabtamaan qaarna ay ku xisaabtamaan 30 bisha. labada qaab baa jiray oo investment lagu qaadan jiray. qofna inuu 15 bisha investmentigiisa qaato qofna inuu 30 bisha investmentigiisa qaato. haddana si kale loo dhigo qofna 15 casho investmentiga buu qaadanayaa qofna 30 casho isku xidhan oo investmentiga qaadanaya. aduu waa bil iyo bil halfkeed. xarjiniya midaan inay fahanteen investmentiga soo qaabkaas u dhacaya. waxaa jirtay su'aal kale oo ahayd signalskii xilli ma la bilaabaya maadaama tiraahdo 13 bisha bilaamaya. waxaa rabay inaan midaas dadka isdiiwaan geliyay oo dad tiro badan ahaa inaan ka raali geliyo midaas inuu signalskii isaguna uu bilaami doono maalinta Isniinta ee soo socota suuqa aynu la furan doono insha Allah. intaana ay anaga isdiyaarinaga ahaan doonto oo aan isku diyaarin doono maadaama aan hadda ka dhamaanay registration horena aan waxba laga bilaabi karin oo systemka iyo wax kastaaba ay qayb naga tahay oo aan rabno inaan maalinka Isniinta ee soo socota inaan toos wax walba u bilaawno haddii la hayno. waxaan rajaynayaa midaas inaan dhalinyarta signalska u reebi doono oo ay dhegeysan doonaan. haddaan mar labaad ku celiyo dhalinyarta signalska isdiiwaan geliyay waxa weeye arrintii signalska waxa weeye maalinta Isniinta maartay isbuucan soo socda waxaan la hadlayaa dhalinyarta signalska isdiiwaan geliyay ee sugayay inuu berri bilowmo signalskooda oo ku beegan maalin Khamiis maalin Arbaca. shan dhalinyarta waan kala gelinayaa maalinta Isniinta haddii la haydno 4 casho kadib inuu bilowmi doono signalskeena si directly insha Allah. jadwalkana waxaan rajaynayaa inaan idin soo diri doono haddii la haydno. arrintii investmentiga dib ugu soo laabto video u soo duubay. arrinta investmentigana wuu socdaa registrationkeeda waxaan rajaynayaa 15 bisha inuu bilaabmi doono inta ka dhimanna maartay uu inoo baalki rasmi doono oo uu inoo socon doono waxa loo yaqaan registrationka. insha Allah waxaan rajaynayaa mid ayna fahanteen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. fadlan haddaad channelka cusub tahay subscribe, like and share and comment.
wixii su'aalaad qabteen waxaan rajeynaya inaad comment igu soo weydiin doontaan insha allah. waxaan rajeynaya inaan tixgeliyo qoraaladiina iyo hadaladiina aad telegramka igu soo qoraysaan instagramka. dadka qaar whatsappka ka soo hadlayaan, aniguna waxaan idin raaligelinayaa mid ah soo jawaab la'aanta maadaama ay hawshu badan tahay inaan idiin soo jawaabi waayo maadaama idinka raaligelinayaa. waan idin salaamaya mar labaad. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. lambarka lagala soo xiriiri doono arrinta investment insha allah waxaan rajeyn doonaa inaan idinku reebi doono descriptionka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.